wiilka soo dhigtay ee GoFundMe dayaxa loogu aruuriyay lacagta leh ma aniga ku aqaano inta isku baranay ma aniga lacag ii aruuri ku yiri ma ana ku dirsaday ma ana aniga adiga nolosheen miyaan isla hadalnay ma ana amar iiga qaadatay ma ana u baahan lacag wariyaankii dayaxdal nuursha ahaa oo xanaaq dhig la qabta aan lahayn ayaa afka furtay asigoo waliba dacwo ka ah Qadar Fahiimo ninkii naagtiisa London keentay kadib ka duway fiidiyoga haddii aad xasuusataan Qadar Murtimaal ayuu ku qaraabtaa laakiin inta badan dadku waxay ku barteen Qadar Fahiimo islaantii reer Ingiriiska ahayd ee Afrika ka keentay ayuu fiidiyo ka duway ogtihiin ninkan hadda dayaxdal nuursha ayaa dacwo ka oo qaati ka taagan sababta maxay tahay marka ninkan waxa loo haystaa maadaama ayaan dhaweyd ee magaalada Muqdisho ku geeriyootay Allah u naxariistee Farxiyo Cabdiraxiin Maxamed xaaskii dayaxdal nuursha marka ninkan wuxuu sameeyay barnaamij GoFundMe la yiraahdo ayuu furtay oo lacag loogu aruurinayo leeyahay qoyska dayaxdal nuursha maadaama tacsi ay u taalo asoon la xiriirin fanaankii asoon ka codsanin arinta inuu sameynayo asoon wax xiriir ama wax wada hadal ama wax ogolaansho aan ka sameynin ayuuba Snapchat-kiisa iska soo fariistay asxaabtaygu xiran Snapkayga waa idin salaamaya ma ii fiicnidiino ha maadaama fanaankeyna tacsi uu gashay waxaa rabaa barnaamij surprise ah inaan u sameyno oo GoFundMe aan ugu farxino marka GoFundMe-kaasi ayaan rabaa inaan furo ila socdo GoFundMe-kii oo furtay dadkii maadaama dayax uu yahay qof saameyn leh ee dadka jecel yihiin dadkii lacag ay ku soo bilaabeen inay meesha ku soo diraan GoFundMe hadda sida afkiiska maqli doontiin 360 iyo jajab ayuu sheegay oo bound ayaa xilligan ku jirta laakiin GoFundMe waa uu fashilmay maadaama ninkii loo aruurinayay oo afka furtayba wuxuu taagan yahay ninkii loo aruurinayay ani ma itaqaan ma ku aqaan ma iga codsatay ma i weydiisatay sababta lacagtina aan u baahanahay ina lacag u baahnayn ma iga wareysatay ma iska furanaa GoFundMe mid kale Soomaali waxay tiraahdaa gacantii daahir ah wax daahiriso nin wanaag lagu og yahay oo ahlu tabrucaad ah oo ahlu raxma ah ma tahay waay ma tihid nin xumaan lagu bartayaa tahay nin xaaskiisii asxaanka u fashay ee ka soo waday Afrikada madow ee keentay wadan oo fursad iyo ganacsi iyo dhaqaale iyo laga sameyn kara keentay ninkii fiidiyo ka duubay maanta marka dayaxdal nuursha muu biyo u ka banaa biyahaas muu ka banaayo marka dayaxdal nuursha waa ka soo cawday marka hore waxaa rabaa inaa ila aragtaan asiga naftirkiisa horta wuxuu leeyahay bal ila arka iyo sababta uu GoFundMe u furay bal ila dhegeysta idiin soo jeediyay fikir ah inaan sameeyo fikrad igu jirta aniga oo ah inaanu sameyno GoFundMe linki arintaas waxa weeye qof walba oo awooda ama sameyn kara أو أنت أسوأ سمية فكرة كم كسر شيء ليه ساعة كده ممكن كأنه واحد ويدك أنت هذا بدن أي ربان إلا سمية برامجكي لكن قف سميني أو ستين أي أنا بس حلقة قامي أنا أي أنا لينك كفري لينك أقوفن كا خرد وادعي أو إن أنا أسير لحرير إنه حرير للسماء إنه لهنا قوفن بقول فرني أي في الصومال التصحيح لكن قوفن كا قف كأسير أوجين بالله فكرة الله سمين كرا هدونا وحوي لا وحوي وحي مشاس متقنا كإمادة فرحاد أهان لولا قيبسن كرا واسد انترناشنال كمقفك سيلبرتيغا لو سمي اساس واي لكن سوماليدو واسنت هرغها waxa weeye walaalkeen waxa weeye dhagahay ka galeen xagay ka soo mareen waxay ku dhahayn maxaa waxa uu sameysay nimba rag baa kugu dawarsanaya lacag baa lagu aruurinaya dhaqaalaha waxa weeye meel ku socda arrimo noocaas Snapchat-kayga ugu yaraan maalintii waxa daawata 56 in ka badan baa daawata intooda badan diyaar waxay u haayeen arrinta GoFundMe inay igala shaqeeyaan dad badan oo waxa weeye ilaahay dartii waxa weeye igala shaqeeyay arrintan dhaqaale u soo diray waxa weeye haddana soo waday baa jira alxamdulillah waqti fiican buu waxa weeye aan joojinay sidaan u joojinay kala maahan maadaama Soomaalida oo dhan ay khalad waxa weeye iska dhaadhicisay in anagu dhaqaalaha jabkeena ku dhacayo sidaas ayaan ku joojiyay 385 pound baa hadda baa ku jirta GoFundMe xilligu leeyahay xilligiisa markii la gaaro insha Allah walaalihii wax baxsaday ajirkeeda waa leeyihiin aniga dadaalka iyo linkiga iyo waqtiga lahaana dadaalkeeda waa leeyahay aniga ma khasaarin wax dhiba iyo wax ceeba oo soo gaartay ma jirto qof kasta oo soo caayay iyo xataa fanaanka waxa weeye waxyaabo dhacdhaca oo ka dhacdhacayba
waxba anaga nama ahan anagu waxaan u soconay ilaahay dartiis wadadaan u soconay waxay ahayd ilaahay dartii inaan wax u samayno ilaahay dartii wax u samaysnaa ajirkeeda waa leedahay haddii ilaahay dartii wax u samaysanto ajir allah kaa siiyo qofki ilaahay dartiis wax u sameeyey oo qaluubtiisa nadiifka ilaahay dartiis wax ugu sameeyay ajirkiisi ilaahay baa siinaya taas waa taas laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay qof kasto markii uu hool qabanayo dadku hoosha uu qabanayo waa inuu horta tixgeliyaa waa inuu wargeliyaa horta meesha wax ku aruurinaysid ma ahan biyo ma ahan biyo cad ma ahan meesha waxaa ku aruurinaysid waa lacagtuna waa og tahay meesha ay ka taagan tahay bini aadanka marka maadaama lacag meesha ay soo galayso waa in lagula haayo barnaamijka waa in lagula og yahay haddana midda kale qof lagu bartay inuu sadaqada aruuriyo dadka wax u taro wax qabto ma tihid waxaa lagugu bartay nin naagtiisa fadeexeeyey inaad tahay nimee xumoo u baxday samow ma u baxays qadarow xumoo waa kuu taala meel samow ha sugin marka gacantii daahiraan wax daahiriso marka nin wanaag lagu ogyahay intuu goonfan furo aa la sharfi karaa laakiin adaad wanaag laguma ogo wax lagugu ogyahay soomaalina waa ogtahay adin waa is ogtahay dayaxda nuushe qudhiisa bal aan isla aragno wiilka soo dhigtay ee GoFundMe dayaxa lagu aruuriyo lacagta lehe ma aniga ku aqaano inta isku baranay ma aniga lacag iyo aruuri ku yiri ma ana ku dirsaday ma ana aniga adiga nolosheen miyaan isla hadalnay ma ana amar iga qaadatay ma ana u baahan lacag wariga ilaahay yaqaan wax ku cishta hadaa leedahay ma taqaana ama wax ku sheego Soomaalina waa ku jeeday ka ilo waxaasna ma taqaana cancel iska saar waxyaabo lagu kaftamay wax kala jiro magaceygana ha iga haleynin hadaa lacagta u baahan tahay adiga dadka weydiiso laakiin magaceyga ha ku haleynin waa wiilkan xasbunallah indha adaka ta ku dhashay waa wiilkan waa ninkii dayaxda nuursha ahaa waxa hadlaaya oo afka furtay oo dacwo ka ah ninka qadar ani ma taqaana oo ku leeyahay qadarow meel ma isku aragnay ma ay sheegtay mi soo wargelisay mi tixgelisay ninka barnaamijka u qabanaysid aniga ma aha intaas jid ma soo martay ma aad soo marin waa soo fariisatay Snapchat-kaaga asxaabta igu xiran waa maadsantihiin saa ii daawatiin wala goofanan furooya ninkii fanaanka ahaa ee dayaxda nuurshe geeridii ku timid darteed tacsiidiisa aan ka qayb qaadanayna goofankii magacaaga ku qoratay waa furatay dadkii lacag kugu bilaabeen 380 hadda ku jirto saa sheegtay 380ka haddii aad dadkii lahaa u celin karin si munaasabkeed leh sadaqay qaabka u qaaday sadaqeed ma aha sadaqeeso howshan oo lagu dirsaday ma aheen waa isdhibtay waana iswareerisay fudeedka ma fiicno fudeedka falkii aan laga fiirsanin faxshiraa isugu fariisinaya dhacda Soomaalida falkan inaa ka fiirsatid ee hadda faxshiraa fadhisaa nin miisaan iyo mug leh oo Soomaal dhan ay wada taqaanaan rabti madaxiisa ayaan dhan inaad ku dhuuqdid laakiin waa lagu diiday marka samoon waa ku hayno xumuulan ku hayna walaalkiyo qaladna naga fahmin adaa timir beero waay tiitina beerate timir ninkii beerta timira u soo baxay tiitin ninkii beertan tiitina u soo baxay islaantii maskiinta ahayd ee adiga wanaaga aragti ku fashay aabba ka qeylisiisay be marka dad kale ma u daayaysid brada video tan ku soo gabagabeynaa dayaxda nuurshe iyo ninkan u garqaado beelma adeeryaalo yaa qaldan videoana waxaan ka codsanaad ku soo gaaro inaad like dhaad si uu meel fog ku gaaro commenti fikirkaaga xorka ahna hoos noogu reeb tani kulantadan dab nabadgelyo